السلام عليكم. halkan waa xogsiin media ku soo dhawaada muuqaal cusub. qatar waa wadan dhaca bariga dhexe ee qaaradda Aasiya. waa dal Carbeed, waa dal leh awood dhaqaale oo aad u badan. qatar badkiisa waxa lagu sheegaa inuu yahay 11572 kiiloomitir laba jibaaran. qatar ayaa haysata qaar ka mid ah warbaahinta ugu waaweyn caalamka, waxayna kala yihiin Al Jazeera iyo beIN Sports. taariikhdu markay ahayd 2 bishii 12 2010 dowladda qatar ayaa ku guuleysatay martigelinta koobka adduunka kadib 12 sano ay isku diyaarinayso dowladdan qatar. 20 bisha November ayay u suurtagashay inay furaan koobka adduunka. waxaa ka soo qaybgalay xafladii furitaanka madax ka kala socotay wadamo badan, dad dunida caanka ah iyo marti sharaf. sheekada xiisaha leh ayaa ah in markii ugu horeysay koobka adduunka lagu furay bisinka waxaana aqriyay amiirka wadankan Tamim bin Hamad الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. من قطر، من بلاد العرب، أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022. sidoo kale xafladii furitaanka ayaa wiilka da'deer ee Qanim al-Miftah wuxuu ka aqriyay aayad kamid ah aayadaha Quraanka Kariimka. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Qanim al-Miftah waa wiil qaba xanuun u diiday in jirkiisa qaybta dambe uu koritaan sameeyo, balse arrinka kama hor istaagin inuu noqdo mid naftiisa ku kalsoon isla markaana soo jiita indhaha caalamka. qatar ayaa ka yaabsatay dunida inteeda badan, waxayna soo bandhigtay inta laga filinayo in ka badan. qatar ayaa martigelinaysa in ka badan 3 milyan oo taageerayaal ah kuwaasoo ka kala socda dunida dacaladeeda. wadamada ka qaybgalaya koobka adduunka waa 32 dal. afrika waxaa uga qaybgalaya 5 wadan, waxayna kala yihiin Senegal, Cameroon, Ghana, Morocco iyo Tunisia. koobka adduunka waxaa lagu bilaabay ciyaarta u dhaxeysay wadanka martigelinaya ee qatar iyo wadanka Ecuador. qatar ayaana guuldaro dhabarka loo saariyay waxaana laga badiyay 2-0. qatar uma suurtagelin inay u gudubto wareegga 16-ka sabab la xiriirta in 3 ciyaar oo isku xiga laga badiyay. tani inta ku kulmi doona mawduuc lamida kan waxaan idin rajaynayaa khayr. fadlan haddii tahay marka kugu horeyso janaalkan subscribe saar, share dhaw asxaabtaada la wadaag. mahadsanid.